محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه waxaa runtii galabta farxad inoo ah iyadoo aynu goobtan isugu nimi runtii martina uu inoo yahay sheekheena sheekh maxamed cali jaamac si aynu insha allahu tacaala uu inoogu soo jeediyo muxaadaro ku saabsan khisaalun min aliimaan iimaanka khaslada ka mid ah waxaa insha allahu tacaala aynu dhegaysan doonaa muxaadaradaasi وأنا كفايدي سندونا شيخنا وكسور وينيا فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع أولا اللي أن شعلها هنا ما أنت وحي لهي كرسية أن كيدا هذا وحاوي هيسا ولا الكي وشيء من خصال الإيمان إيمانك يرمين تعالى عن رميني حالذها أولي هي وحكم مذا أما شعبك يلامها وإيمانك سلي هي قارك مذا وهي إيمانك يرمين تعالى عن رميسنا هي ما هاي نقطة وحفقون لقى شيكتو ومد لقى مارمانا إني قلبي قفق الدكتو وقلبي كرميو إسلام مركا اللامو إيامي لنا أي بحيو أو أي كصبحان وصدح الرماد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل حديث أو صحيح وبخاري مسلم يوريني أنو كل ميي وحوي هذا الكوناكسن إنه قفقوا هذا الكوناكسن كد ذاله هذا الكحن يسكيل عليه أما أفكي سكاهيستو إيا إنه إلى قفقوا حقه وكل يهي شاركيسو إيا حقه أي كل ذا مرتديسو وصدح ذا الرماد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحل سيه وحل جوامع الكلم بمعنى هذا الكوبان أيو إلى هذا معنوين حنبارسن والنبي صلى الله عليه وسلم حديث كيري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قفق إلهي رميسا ماليت يوم الآخر كان رميسا فليقل خيرا أو ليصمت خير هيدا هذا هم هيسكا مصو inaad khayr ku hadasho iyo inaad iska aamusto yey kaaga dhaxaynin waxa kale oo nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara qofka ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan waa inuu jaarkiisa maamuusa oo ka ilaaliya wixii dhiba wixii ihsaana iyo safal wihidin kalena wihidiya وحكى النبي يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
qofka rumaynaya alla iyo maalinta aakhire martidiisa ha maamuuso oo ha karaameeya baa nabigu sallallahu alayhi wasallam yiri waa saddex arrimood oo akhlaaqda intii ugu wanaagsaneed ay ku jirto hadday tahay wax la sameeyo iyo hadday tahay wax la yiraahdaba sida aynu walaalayaal wada ogsoonahay qofka bini'aadmiga ahi rag iyo dumarba midku doonaha ahaadee adduunyadan ku nooli waxa uu la nool yahay dad insaanka ama bini'aadmiga waxa la kayn ijtimaaci baa la yiraahdaa yani waa cid la noole maaha kali noole ama yani wax buurahaas uu ku jiro aan cid is arkayn maahe waa kayn ijtimaaci oo bulsho la nool waxa bulshada iyo dadka uu la nool yahayna ka dhaxeeya calaaqad yani waxyaalo isku xidhaya isagu uu u baahan yahay dadka ayaguna way u baahan yihiin diinta islaamka ee ilaahay noogu talagalay inaynu ku noolaano waxa ay ku dadaashay in xiriirka iyo calaaqada u dhaxaysa dadka dhexdooda ay noqoto mid sees saliima iyo manhaj toosan ku qotonta waxaana la heli karaa marka dadka qaarba qaarka kale ay maamuusaan marka mid waliba uu hagaajiyo aadaabtii iyo qaabkii ula dhaqmi lahaa dadka oo ah hadal wanaagsan jaar wanaagsan martigelin u cunanta waa saddexda arrimood ee nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa uu nagu booriyay haddii aynu qodob u soo qaadano saddexdooda ayadoo mid waliba yani muxaadaro kaamila qaadanaysa ama laba iyo saddexba haddana waynu isku soo ururinaynaa haddaynu qodobka u horeeyo dib ugu noqonno waxaynu leenahay waxaa ka mid ah iimaanka iyo rumaynta qofku alla rumaysan yahay kaamilnimadeeda inuu qofku yiraahdo hadal wanaagsan kana gaabsado ama afkiisa ka hayso wixii aan wanaagsanayn nabigu wuxuu nagu boorinayaa khayrka waxyaalihii ugu waaweynaa wixii ugu nafciga badnaa waxa uu inoo tilmaamayaa iimaanka kaamilnimadiisa iyo islaamnimada dhammaystirankeeda inuu ka mid yahay qofka muslimka ahi mar kasta oo uu hadlayo inuu ka hadlo arrimaha ay uga imanaya ama uu ka helayo nafci adduunyo ama mid aakhiro yani hadalkaad ku hadlaysaa waa inuu noqdo hadal ama waxtar adduunyo aad ku heli ama waxtar aakhiro aad ku heli marka uu sidaa yahay hadalku waxa uu bulshadii kalena wanaag iyo liibaan buu la soo noqonayaa waxa kale oo inoo cadaynayaa inay ka mid tahay inuu aamuska iyo afhaysasho u laasimo wax allayaaliyo wixii laga yaabo inay dhib sababto ama fasaad iyo xumaan keento ee ummadda iyo bulshada aan u wanaagsanayn isla markaana ilaahay cadhadiisa ay ka imanayso إمام أحمد أي في مسنده وحا كورين أنس بن مالك نبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قف إيمانك ثم توسيو إلا قلبك سوء توسو ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه قلبي يقفكنا ما توسيو إلا عربك سوء توسو وحكى حديث طبراني وريني أنس بن مالك اللي وريني النبي صلى الله عليه وسلم ويري لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه ما